maanta inaan jawaabta bixiyo aad u jecelahay inta dhaweyto waxaa halkan yimiday musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Ucid Dr. Maxamed Shiishe Xasan oo booqasho gaaban gobolka ku yimiday markaa dabeedna halkan ku qabtay shii jiray in badan dadka la hadlay oo maantana dad gaargaara iyo xisbiga heer gobol iyo heer degmada dhammaan xisbiga yimiday maalin buu waraysi siiyey wargeyska haajif dabadeed waxoogaa waxay muddaa markii waraysigaas in haajif xagga xidhka qaab ka yimiday maxamed shiir wuxuu taabtay arrimo badan oo xaqiiqda runtiya oo ay ka mid yihiin in 8 sano ee xukuumadda madaxweyne daahir yaalo kaalin haysto inayna saansaankeedii madaxweynenimo gobolka Awdal ka muuqan isagoo ku tilmaamay caalamka meesha madaxweynuhu waa madaxweyne kasoo jeedaa inay ka duwan tahay magaalooyinka kale wuxuu kaloo taabtay arrimo badan oo siyaasadda ku jira wajahan Somaliland kabacdi markii jiraydkaas soo baxay waxaa jawaab ka bixiyey wasiirka warfaafinta ayaa ka bixiyey wasiirku markaa xaq uma lahayn inuu ka hadlo arrinkaasi musharaxiintu ay yidhahdeen in wasiirku jawaab ka bixiyo isagu xaq uma lahayn waayo wasiirka warfaafinta isaga marka loo eego wasiir ahaan shaqadiisa marka loo eego wasiirku waxay ahayd mas-uuliyadda saaran waxay ahayd in uu keeno ballanqaadyadii badnaa ee uu fidiyey ee uu dadka u ballan qaaday Somaliland shicibka u ballan qaaday taasoo ay ka mid ahayd in la keeno idaacad gaadha dalka gudihiisa oo dhan laga dhageysto Somaliland idaacadeedu ma soo dhaafto hargeysa wasiirku dhowr jeer wuxuu ballan qaaday inuu idaacad keeni doono meel walba laga dhageysto iyo shicibka u ballan qaaday horta inuu taa keenay nasiib daro isagoo wasiirku aanan ku filnayn shaqadii dowladda loo idmatay oo aanan weli wax qabado oo qabtay oo la taaban kara aanan jirin ayuu wuxuu dib ku darsaday caado anigu marka hore Somaliland jirin aan ka jirin oo ay ka mid tahay inuu u jawaabo musharaxiintan xisbiyada mucaaradka uga sharaxan gobolka Awdal sida gudoomiyaha xisbiga kulmiya Cabdiraxmaan Saylici oo muddo hore halkan ka hadlay warbaahinta gobolka la hadlay isaga u jawaabay Dr. Maxamed Shiishe Xasan oo aqoonyahanada maanta Somaliland farakatiriska ku jooga kamida aqoonyahan isagana maalintii dawladda hadlay uu jawaabay oo waxba moodaaba inuu wasiirku garan waayay shaqadii loo idmaday uu shicibku waayay ee uu shaqo ka dhigtay inuu u jawaabo musharaxiinta ka soo jeeda gobolka Awdal ee xisbiyada mucaaradka ka shaqeeya taa markaynu dib ugu noqono waxay aad u habboon inuu wasiirku shaqadii uu xukuumaddan u hayay ee dadka shicibka ay ka sugayaan inuu fuliyahay haddii xisbiyada mucaaradka hadlaan oo ay wax ka hadlaan waxa jawaabta bixin kara waxa weeyaan xisbiyada xisbiga markaa xisbi xaakimka talada hayo inuu xogeeyo gudaha noqdo ama afhayeenka xisbiga noqdo ayaa wax bixin kara isaguba waxa weeyaan xubin xisbiga ka mid ah xisbinimo buu hadlay maxaa idin markaa wax xanaaqaysa waxaan uga xanaaqaynaa waa wasiirkii warfaafinta isagu ee lama oran karo xisbiga waxa weeyaan waa ka labo xogeeyaha guud ama afhayeenka xisbiga ayaa u jawaabi kara musharaxiintan xisbiga markay hadlaan ama annagaan hadalno laakiin wasiir mar walba uu jawaabaya malaha